kulanti wanaagsan asxaabtayda ku soo dhowaada qaybtii 115aad ee sheekadii filanwaa dhegaystayaal haddii ay tahay markii idinkugu horraysay channelkan sabskrayb gareeya gambaleelkana furta si aad joogto ugu heshaan sheekadan filanwaa laygta saara siina sheergareeya si asxaabtiinnuna ay idinla wadaagaan dibindaabi ahaa waxa uu galay dadaal kaasoo ah markaa sidii gacanta ugu soo dhigi lahaa saaxiibkii baashe waayo $50 ayaa horey loo siiyey $300 ballanqaadna way jirtaa durbadiiba arrintaas ayuu ku dhaqaaqay isaga iyo baashana doodan ayaa dhex martay yaaq saaxiibkay baash ma fiican tahay lamadan biri dhar dhammaadale la arki jiri dadaa dhammaahooyaa meeshan jacaylkii la sheegay sheekaa ku maqli jir laakiin hadda shaahidaa baka ahay laakiin saaxiibo shaaka fiicanaa ku hayaa maanta anaa iraace waxaa ku hayaa ku yidhi adeeg fiican gabartii sabaad eed meeshoo imaahe inay kula hadashana waa rabtaa laakiin meeshaas meel ka horaysa sii marayna kabacdi iidaa kuu geeya maanta anaa ii marti qaadantaa ku dhahay furayaashoo dhan waa soo heli anana wax walba kala furfuraay aniga meelan kuu raacayo inay jirto ma u malaynayo sababtoo anaaba iska burabalamaysan marka waa fasaxantaa meesha rabta adigaad yaaqi saaxiibow maanta la iraac si u raftooym u jeedido meelii hore waa ka duwantaa meeshan soo baxa ku dhaha madaxa yiftucula ku cuna maxaa tiri wax kale ma ku dhihi waa israacaynaa lee ku dhahay waayahay hadday sidaas tahay oo wax fiicanna lagu helayo waxba kama qabo waa ku raacayaa laakiin waxay ogaataa in wax walbaaba ay ku fiican yihiin inaysan xumaan ka iman aniga meesha ay geenaysana waa ku raacaya laakiin aniga adiga waa ku aqaanaa waa mardabad badan tahay meel aan aniga mansabkayga ahayn haddaba ha igeen ka cabsaninaa ku dhahay ma ku geehay labada maal dhaan miya aragti hawaaraa ku jiraa ku yidhi duq oogle iyo duq muriidisada ma uu inkaaro inaasaa u dhammaata uyakaa mas-uulka ah laakiin waxaa kuu ballanqaadaa ku dhahay uyakana inaan kabtooda musmaar u geliya ku dhaha soo bax saaxiibo adaahin soo bax sheeka dheereen oo taale soo bax waxay go'aansadeen in la isla raaco oo markaa la isku saandarsado talow xaggeen loo socdaa dibindaabiga waa ogyahay laakiin baashi war kama hayo dhinaca kale markaad eegtid gabadhii ahayd ismahaan marba saacadda ayay eegaysaa ilaa waxay la ballansanayd dibindaabiyo inuu u keeno baashe keligeed ayaanay waxay bilowday inay isla sheekaysato waayo ilaa iyo 5 daqiiqadood ayay wakhtigii dib uga soo dhaceen alla waa soo daahay ka waran ninkii dibindaabi ahaa saan miyeed ballanteena wallaahi bilaa dadkan wax la aamino maaha yaa albaabka ma naga furto war soo gal maxaa kugu dhacay waa soo daahday ismaan ma fiican tahay haa fiicana saaxiibkay baashiyaa la socdaa aawe waa kana baash muujeedo woo hay soo dhawaada yaaqay hay ismaan meeshan maa degan tahay haa bo xaaladaada ka war caadi weeyaan soo fariista yaaq soo galo gudaha soo gala waa mahadsan tahay yaaq baash meeshan waxaa laga soo marnay meeshii u soconaya si aadayna laakiin inta inaan biyo ka dhanna le usoo marnay wax kale mana soo maraya anaa biyo soo gelihaayo adna meeshaas kasii fadhiya mininka anaa geed u kala kasaayo haye baashi ii waran ismaan waa la fiican yahay maalmahan ayaaba ku arkaba warniyo waa lagu waaye maxaa ku hela ma xanuunsata aniga ismahanay dabcan xaaladdeeda waad la socotaa waxyaabaha aan dariska lahayn waad ogtaha maanta aniga gabadhiisa baad ahaydba sidii odagii ooglaha loogu daray xaaladdeedaba caadi maahayn xataa waxbarashadii aad baan uga sagsaagay wallaahi horta baasho arrintaas aadaan uga xumahay laakiin inaa isdaba raacisa maahayn qofka mar hadduu kaa tashto waxaa wanaagsan inaad adigana maaragtaa fiiriso mustaqbalkaaga iyo wixii markaas caafimaadkaada ku jiro laakiin haddii aad niyadda gashato qof kaa tegay oo kaa tashaday runtii waxay ila tahay inaad dhammaanayso sidii shumci oo kale haddana runtii baashihii la yaqaano ma atihid sidaa isku bedeshan waan kuu jeedaa marka waxaan jeclaan lahaa inaad mowqifka aad ka qabtay gabadhaas ee ah jaceylka daranaa ad u hayso inaad iska ilowdo oo aad tashato oo kolleyba qofka haddii uu waayo waxa uu rabay inuu wax kale micnaha u dhigma inuu raadiyo dabcan waa runtaa laakiin naf walbaaba wixii ay jeceshahay
waxa ay ku dadaashaa sidii ay ku heli lahayd waad og tahay sugaan badan baa lagaga hadlay rabitaanku waxa uu yahay iyo heerkuu gaarsan yahay kuwo kaloo ayadana waa jiraan ka hadlayo sida haddaan tusaale kugu soo qaado ismahani haddaad jamato geed adag oodan hayn wax kuu jaro waad fahmi karaysaa markii aan saasa dabcan aan ku dhahayo anigu hadda meesha iga hayso aad baan u kala fognaa oo buuro ayaa noo dhexeeyo sababtoo ah gabadhii waa la guursaday laakiin qalbigaygu way ka dhaadhici la-dahay sabaad waa la guursaday wuxuu qalbigaygu mar walba anigu ii sawirayaa sabaad inay aniga gacanteeda kusoo laaban doonto oo aysan iga fogeyn taasina waxay daliil u tahay jacaylka baaxadda leh ee aan anigu u hayo gabadha sabaad ah haddii aan weyana go-aankaygaba waxa uu yahay inaan gabdhaha oo dhan ba iska dhaafo oo aan keligay markaasi aan iska noolaado taas laakiin waa fikir aada u xun ee qof dhintaa laga samraa maahan in aad waxyaabo qayaali waxba aan waxba ahayn maanta inaad naftaada u haligto jaceylku wuu jiraa laakiin haddii la waayo inaad ka sabarto oo qofka maadaama ayada ay kaa tashatay inaad ka tashata ayaa ila wanaagsanaan lahayd naftaadana aadan qaribin dabcan adigay ku jirtaa marka beesha adiga taada unbaad ka hadashay laakiin aniga tayda ma fiiris adiga waxbaad aad rabtaa inaad macnaha aniga aa iga dhaadhiciso adigu hadda aniga ayaad ii baahan tahay aniguna qof kale ayaan u baahanahay xaqiiqda dhabta raalli iga habo waa fakaday oo ayaamaha dhammeya sidaa ahayd hadallo markaad laguu sheego oo aan kaa dhaadhici karin dabcan isbeddel baa kugu imaanaya marka miyaysan ahayn in oo aan aniga waa kaa raalli garaynaya waan ka xumaa inaan anoo gurigaaga joogo misna aan ka hor aan ukhayliyo maya kulley waxaas dhib ma lahan laakiin waalid dhintaa laga samraa marka baasho inaad sida isku raacsiiso ma wanaagsana dabcan diintana nin wax ka yaqaano waa tahay marka niyadaada deji oo meesha markaas aa isleedahay waad qaadi kartaa inaad raacdo ayaa ku wanaagsan ani kulley xumaan kuuma wado laakiin waxaa isleedahay qofka dabcan haddii uu dhibaato ku jiro in aad macnaha dhibaatada la qaybso sabarsiin bay kaa tahay inaan aniga adiga aan wada socno sabaadna aan iska dhaafo adiguna aan taada aan ku yeelo dabcan hadda ma haysaa macnaha ujeedada aad ka wadda waxay tahay inaan aniga adiga wax wada qaybsano soma dabcan aniga walaashay un baan ku arkaa inaan wax kula qaybsadana weli nafsadeeda kama aysi soo go-in waxaan jeclaan lahaa marka inaad jaanis aniga a isiiso oo aan aniga nafsadeyda aan kusoo xaliyo sababtoo a mashaakilka aniga nafsadeyda ku furan xalkiisa aniga ayaa la igaga baahan yahay ee adigu inaad xallin karto u malayn maayo sidaas daraaddeed waxaan u baahanahay in aad firaaqo a isiiso anigu nafsadeyda aan kula soo hadlo keligay markaan go-aan soo gaaro kadib aniga ha iga soo fusho aan kuwa imaado inta ka horraysa aad baad umahadsan tahay gabar walaashay ayaa tahay gabar aniga dhibaatadeeda ka fikiraysa ayaa tahay wax badan ayaad iisoo bandhigtay wax wanaag ah wax xumaana ilaa ayaa hadda kaama hayo laakiin nafsadeyda ayaan usoo jeedin waxyaabaha adigu ay nafsadaada ka turjumayso ismahaan aad baad umahadsantahay baasha waxaan ku dhihi lahaa horta taada kolley waan ujeedaa dhibaatada ku haysato anna dhinaca layga haystaa marka waxaan jeclaan lahaa maadaama aad fursad hayso hadda awal iyadaan kugu dayn jiray laakiin aniga fursad qaaliya ay ahayd inkastoo adigana ee dhaawacay ku ahayd marka baashi waxaan jeclaan lahaa in arrintan aad dib dambe u tashato oo aada laqdo dhibaatada kaasoo gaadhay gabadhaas sabaad dabcan haddii ay ku rabi lahayd wax kula wado ma umalaynaya inay nin aadi lahayd ama aabaheed taladiisa ay raaci lahayd marka baashi arrintan waxaan jeclaan lahaa si fiican baad u hadashay haye qofka baariga waalidka horta wax kama jiido waalidka gartiisa iyo gartiradiisaba waa gar laakiin adiga hadda waxaad tiri fursad qaaliya ayaa ahayd aniga iyo sabaad inaanu kala tagno aan isweyne adiga miyay fursad ku ahayd dabcan waxaan leeyahay adigana kolley meel baa dhaawac ka ahayd anna meel baan dhaawac ka ahaa marka aan fiiriyo niyadeyda waxay ii ahayd aniga kolley farxada ii ahayd maadaama baashi maanta meel cidla aan ka helay yaakha sheekadiina waa dheeraatay gaxo xaraartii u daldalaayay kaligay meeshaas waa ku cidlooday sheekadiin masii wadaysii mase anina waa niigala qayb qaadan karaa waryaa dibindaabiyo maxaa ku helay wax yaraa noo dhimayaa intiin tarmuus gaxo xaraarka cabo war lee wadeen saaxiibkee oo qaylahayna waa maqlay wariir maa qaniin may sheeko le waxyaabo kalaan soo xasuusana marka wax yar naga qalayaa ismaan waxaan umalaynaa waqti fara badana joogna ninkan hadalkiisa ani imaba muuqdo sababto a ninkii soo waday waaye oo meeshana i keenay
waxayba eela muuqataa waxaan waxa aad ka wada shaqaysan inay tahay haye adiga waxaa ii sheegtay sabaad intaan waan soconnay adigu inuu rabitaan kugu jiray fursad qaalin ay ku hayd sabaad in uu odagaas ay raacdo si aniga aan kugu soo madax banaanaado laakiin ma ku xisaabtantay haddii aniga aan xataa banaanka aan ku soo dhaco inaan adiga wax kula qaban doono iyo in kale iyo inaan wax kula qaybsan karo nafsadeeda ay taas ay ka dhaadhici karto ma ku xisaabtanto kale horta baashi kuma aad xisaabtamay taada keliya aad ka raacday marka aniga waxaan kuu sheegaya waxaas weli wax aniga iga soo go'ma haddii xataa aad ka shaqaysa arrimahaas oo dhan aniga waxba kuuma qabo sababtoo ah qof dan le ayaa ahayd si aad dantaada ku gaarto un baad ka shaqaysay laakiin aniga wax badan baad igaga ciyaartay haddii adiga aad sidaa aad ku faraxsanayd sababtoo ah waxay ahayd qof haddii uu buko meelna laga haysto in lagu caawiyo meesha sidii ay arrimihiisa ay lagu furdaamin lahaa laakiin haddaad u fikirto qofkan ha ku hungoobo xaggaas ee adiga aad heshid taasi waxay la tahay ismaan in laga fiican kolley baashiyow qof walba niyadeeda iyadaa og soo maaha marka aniga waxay la tahay hadda inaad usii hanqal taagto qof hadda nin waayeela aroosay aad rajo kasii qabto taasaaba igala sii daran baani soo maha waxaan kuu sheegay anigu qalbigayga wuxuu itusayaa sabaad inay gurigaas ka soo bixi doonto maalintay noqotoba agteedana ay imaan doonto weliba ay xaaskayga noqonayso carruurteedana ay daadihin doonto waxyaabaha qalbigayga uu ii sawiraya quruxda badan kuwaas ayaa ka mid ah qalbigayguna waxa ii sheegaya dabcan waxaan aaminsanahaa in aan heli doono hadduu ilaahay idmo waxaad jeceshahay lama helo horaa loo yiri dabcan waxaan filayaa in aad waxyaabahaas oo dhan isku ilowdo sabaadna waa ay kaa tashatay marka baashow horena oo kugu sheegaan kolleyba in arrintan ay dib usoo noqonayso adiga iyo sabaadna aadan isheli doonin calafkiinana uu kala tegay haddaba dabcan oday waayeela gabar qabana ilamahan inaad dib dambe u heli doonto sabaad sida ay kaaga tagtay ayayna tahay kolleyba waa tahay taas adigu waa aragtidaada iyo sida adigu markaas kugu jirto laakiin aniga waxaan kuu sheegayaa maalintay noqotoba in sabaad iyo anigoo wada joogno inaan ku casuumi doono aad baadna umahadsantaha anigu hadda waan iska sii tegaya fiir baasho laakiin aniga maxaa dhacay dhinacayga maxaa sideen kula ah adigu qof qurux badan baa tahay qof fiican baa tahay gabar aad macnaha soo jiidasho badan baa tahay laakiin hal midaad ku xun tahay adigu waxa aad rabta haddii ay meel kale ku jiraan waxaad jeceshahay inaad lugoyso oo aad arrimahaas ka shaqayso taas ku xun tahay taas maa baashe dabcan an saaxiibtay waan kula jeclaa qofka ugu horreeya oo iskiin bara ahaa ma xasuusta saaxiibta ilmaadan jecleen la adiga ay jeclaa dhegeysa hadda haddaaba ii sheegtaba hadalkaagu haddii uu mar walba dib uu isugu lalaabto waxay ila tahay inaysan wax ka soo baxaya haba yaraatay aysan jirin aniguna meeshaan sii joogitaankeeda waxaan u malaynaya wax dan oo haba yaraatay igu jirta inaysan jirin meeshana waa iskaga tagaya runtiisa waay meeshaan haddii isku dahay iska fasaxdiyo bis waaya meeshaan waa la buuxaa ku dhahay meeshii ritid ka soo baxsa koo kale kanaa iska dhaafaa ku dhahay meelaas kusii jeeda sabaad cawadii markii socahay sabaad maalintii sabaad markasta sabaadaas ku jira adina baashi aa ku jirta ma iska dhaaftido qaybtii 115 ee sheekadii Faranwaa intahay noo joogto dhegaystayaal haddii ay tahay markii idinku horreysay channelkan subscribe gareeya kambaleelkana furta si aad joogto ugu heshaan sheekadan Faranwaa like to saara siina share gareeya si asxaabtiinuna ay idinla wadaagaan